website-ka warcusub.com waxaa hor fadhiya xildhibaan Baashi Muuse oo Soomaalida Norway ay u dooratay golaha deegaanka 4 sano hadda ka hor markii labaad uu isku dayana aan ka mid noqon 20 qof soo galay golaha deegaanka laakiin maantay oo taariikhdu tahay 21 ayaa Baashi ku guuleystay ama nasiib u yeeshay inuu soo galo golaha deegaanka Soomaalida Oslo ee ku xiran warcusub.com ayaa su'aalo nafta uga qaaday warcusub.com oo weydiinaya sababta Baashi hadda u soo galay golaha deegaanka Soomaalida su'aalahaas weydiinaysa warcusub waxay isugu jiraan kuwii Baashi doortay iyo kuwii aan dooran labadaba warcusub ayaa waxay weydiinayaan sabab say Baashi ku soo galay golaha deegaanka Baashi maxaa kale arrinkaas بسم الله الرحمن الرحيم runtii marka ugu horeysa waxaan salaamayaa daawadayaasha shabakada warcusub ee dunida daafaheeda iyo dacaladeeda ku nool gaar ahaan dalka Norway magaalada Oslo runtii waxaan jecelahay inaan si gaar ah ugu mahadnaqo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Oslo degan oo si hagar la'aan ah ii doortay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo dhammaan dadkii ii doortay iyo kuwii aan dooranba gartay iyaguna inay codkooda isticmaalaan golaha deegaanka ee dalka Norway waxaan soo dhameystay xildhibaanahan 4 sanadood ayaa soo dhamaaday 4tii sano kale ayaan u tartamay Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuu igu guuleeyay oo maanta ayaa warka la soo gudbiyay 10kii subaxnimo waxay ahayd xasanow laba face ama laba waji bay arrintu u qaybsanayd facekii hore waxa soo galay 20 xildhibaan 20 ka xildhibaan oo runtii codad badan ku soo galay aniga u cod badan baan haysto ilaa 2300 ka badan hase yeeshee kamaan mid noqon facekii hore marka facekii labaad ayaan si toos ah u soo galay kaasoo ay dadka qaar noqdeen gudoomiyayaal waaxid ama wasiirabaha la yiraahdo ay ka noqdeen magaalada maadaama xisbiga uu qabsaday magaalada Oslo maamulkeedii markaas halka chance baa ka banaanaaday waxaan noqday qofkii ugu horeeyay Soomaaliyeed ama Afrikaana ee ay u suurta gasho in golaha deegaanka si toos ah u soo galo magaalada Oslo saaka 10kii subaxnimo ayaa la sheegay Baashi horta warcusub.com isaga oo ku hambalyanaya Soomaalida waxay fahmi laayihiin adiga oo awlan ku jirin 20ka u horeeya soo gala golaha deegaanka haddana inaad soo gasho marka arrinkaas sharaxaad ma ugu bixi kartaa sidii ku dhacday runtii doorashadu waxay u qaybsantay laba waji bay leedahay wajiga koobaad waxa weeye si toos ah ay dadku u soo galaan oo 20 xildhibaan ayaa laga soo doortay xisbiga shaqaalaha oo aan ka tirsanahay 20ka xildhibaan markay soo galeen waxay ku soo baxeen codad badan oo marka anigu maan gaarin codkii xildhibaanadaas oo kale waan ka cod yaraa hase yeeshee waxaan noqday suge ama xubin suge ayaan ahaa marka qayb ka mid ah nimankii la soo doortay ee codka helay ayaa waxay noqdeen hogaamiyayaal waaxid oo waxay shaqo ka heleen xisbiga gudihiisii ama magaaladii dadkii loo soo doortay inay magaalada hogaamiyaan marka qofka shaqada hela ee ka hela hogaanka magaalada iskuma hayn karo shaqada xildhibaannimada iyo shaqadan hogaanka ee uu qabtay marka waxay banaynayaan ama waxay baneeyaan shaqada xildhibaannimada ayaan marka anigu hore ugu durkay xildhibaan Baashi maanta waa maalintii koowaad ee afrisatay golaha deegaanka Oslo gurigan golaha deegaanka ee Oslo loo yaqaan Roodhuusaha maxaa ka dhacay maanta xasanow maanta waxa ka dhacay gurigan golaha deegaanka ee magaalada Oslo oo ah meesha laga maamulo magaalada Oslo kulankii ugu horeeyay ee lagu ansixinayay golaha deegaanka ee magaalada Oslo oo ka kooban 59 xildhibaan ayaa wuxuu ka koobnaa in la doorto maayirka cusub oo ah maayirkii magaaladan Oslo oo la ansixinayay iyo maayir ku-xigeenka taasaa ugu muhiimsanayd iyo gudiyadii gaarka ahayd ee uu ka koobnaa golaha deegaanku oo iyagana la ansixinayay marka mid ayaa loo ansixiyay gudiyadii isla markaana waxaa la ansixiyay maayirkii magaalada oo iyadana la ansixiyay iyo maayir ku-xigeenkii ee la ansixiyay xasan taariikhana dib ugu noqono 19 sanadood ayaa ka soo wareegtay markii ugu horeysay ee garabka bidixdu uu ku guuleysto maayirka ama awoodda magaalada Oslo taasna runtii waxay ahayd arrin guul ah maanta waxay kaga duwan hadii la jaleeco maaragtay qoladii hore ee xisbiga muxaafidka iyadoo ay laba nin ka ahaayeen maaragtay maayirka awoodda badan ee la yiraahdo biiroodka iyo maayirkan ceremonial maayirka la yiraahdo ee awoodda yar labadu waxay ahayn laba nin
haddaba garabka bidixdu maanta waxay ka dhigeen laba gabdhood laba haweenay bay ka dhigeen laba dumara gabadh ka tirsan xisbigan garabka bidixda iyo inan yaroo 27 jira oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka la yiraahdo Sri Lanka oo iyaduna markii ugu horeysay taariikhda qof dadka laga tirada badan yahay ama ajnabiga loo doorto maayir oo inta da'deedu eg tahay marka runtii waxay maalin taariikhiya maalin qiimo leh iyo maalin runtii xisbiga shaqaalahana qiimo u lahayd magaalada Oslo-na qiimo badan u lahayd waxa isagana runtii la doortay governing maayirka ama maayirka awoodda badan oo isagu ah magacyadii baa la bedelay magaalada waxa loo bixiyay maaragtay golaha deegaanka markii hore la oran jiray golaha deegaanka ayaa waxa loo bixiyay dawlad baa loo bixiyay waxa la yiraahdaa dawladda magaalada Oslo waxa loo bixiyay wasiirada biidelada ama xaafadihii oo la oran jiray biidel isbedbalge ama hogaamiyaasha xaafadaha ayaa waxa loo bixiyay maayirada xaafadaha marka magacyadaasna waanu bedelay si markaa la isu waafajiyo oo loola jaan qaado bal habka ay magaaladan u dhisan tahay iyo shacabka marka awoodii baa la doonayay shacabka dib loogu soo celiyo iyo in la bilaabo bilow cusub oo laga dareemo hadii lahayd baashi gurigan hadda laga maamulo Oslo loo yaqaan rood huusaha Soomaali ayaa ku geysay maxad ballan qaadaysaa maxad Soomaalida u ballan qaadaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta runtii awoodda ilaahay baa iska leh dadkii Soomaaliyeed ee runtii sida hagar la'aanta igu codeeyay ee halka ay geeyay anigoo jecelna insha Allah inaan ka sii socdo baarlamaanka uga gudbo ayaa waxaan u ballan qaadayaa in aan si cadaalad ah u difaaco si cadaalada wax ugu qabto waxa la wixii aan awoodana inaan maaragtay sidaan u difaaci lahaa sidaan wax ugu qaban lahaa sidaan u fahmi lahaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed haysata iyo wali muslimiinta iyo dadka Norwejiga ah ee iyaguna dhibaataysan inta waxaan u ballan qaadayaa si cadaalada hagar la'aana Soomaalinimo leh walaalnimo leh muslimnimo leh inaan ugu adeegi doono ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu ila garab qabto Takk til telekorpset, og da kan jeg meddele at Marianne Borgen valgt til byens ordfører med 31 stemmer.